oo Soomaalida kamid ah ahaan lahaa daqab ma waxa la leeyahay Arab ba tayba la leeyahay wala anigu hadan Yemeni ahay 20 sano ay Yemeni Soomaalida ay haysay ay marti u ahaayeen ay gobonimo ugu noolaayeen cid ma qabeen hadii cid gaar ah iyo dad gaar ah waxay igu soo oogay maanta qof intii soo ristaagay oranay waxa asaad ugu sameeyay ama waadna cayda ama waadna disha ama waadna flagaadis ama fanaan oo waxba sameyn oo ixtiraam iyo karaamo qof walba Ilaahay si u leeyahay ayaa waxa la igu dhaxiray meel dil iyo tuug iyo aan fanaaniintii iga horreeyay awal loo xiri jiray kiisaskan oo kale aan lagu xirin ayaa la igu xiray waxaan Ilaahay ka baryay Ilaahay baa cadaalad hayay balse dadka ay shaqada tahay ha noqoto ama ha noqoto xuquuqlistaanka ama cid walba bulshada Somaliland iyo bulshada Soomaaliyeedba iyo fanaaniinta. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سومالي محمدي أنا ديار رهين بفيديو سو فريستي وحال كان فرين إيسو قد بي أما إيسو درسدي ساو تقانا ولكن صالح عرب وما كحران إن هرقيسة إن فرين تصنوح إيجا جارسي سومالي ذا أنو هيسو ولا لذي دما سومالي محمد لما كلا صاري ميلك سيدون التافيذ كسو جدا أوكي محنا إن هذا بقى إن صالح عد كيسي iyo wixii dhanba rabay inay idin soo gudbiyo iyo fariintiisa Saalax waa ayo horta ay idin sheego Saalax waayo Saalax waa Arab wuxuu ka soo jeedaa Yemeni wuxuu ku haysaa afka Soomaaliga waa Soomaali madax banaan ma ahan meel maanta cid celin karta ma jirto hadaba Saalax Arab wuxuu ku xiran Hargeysa hadaba ila dhageysta anigu Saalax Ali Abdinabi Abdullah Al-Maish oo ku magac dheer Saalax Arab kuna heesa afka Soomaaliga Soomaaliyeed kana tirsana dowladda Soomaaliya Itoobiya waayay dambana hadda ku sugnaa Hargeysa ana Hargeysa ku yimid waxaan uga yimid dalka Masar baan uga yimid Hargeysa waxaan yimid inaan barnaamij ku qabto waan ku qabtay socdaalkayga labaadna waxaan ku tagay Muqdisho aan kula soo qaadanay waqti taageerayaasheeda 5 bilood ka hor baan Muqdisho ka soo laabtay Hargeysa markaan midna waa la xiray بعد الشام بلوك بعد أيها اللي يقصوا كيس حمر باتكتين أنا أقول إحنا فنان كتسن فنانين الدولة ديان كصومالي توبيا دلا شاهنا كسر شيء الدولة كيمن هرجيس واحد كسر قال شرعي يفيدي هدي أنا أقول أنا رح ضمن نذا الصومالي الآن أنا دل كوكل يفيدي كم سوقاتين قاهرة شرعي نكم سوقين وما أنت مقدسة هذا عادة عن هاي فنان دل يمد دل كريتي بغلبان أنا بتقولي بكس الدولة ديان كصومالي توبيا كسر إيش meel walba Soomaali joogto oo taageerayaasha joogan waxaan jeclahay inaan tago aan waqti la soo qaato waxaan ku xiranahay 12 cisho saldhigga dhexe ee Hargeysa waxa la igu siiyay oo konsita laba mar baa maxkamad la geeyay wax gaar ah oo lagu soo oogay ma jirto dalka waxaan ku joogaa sharci deganaansho oo waxaan ahay nin Yemeni ah oo deganaansho dalka uu saaray citizenki dalka uu saaray kaar qaxootiga haystabana dalka sharciga uu yaala ma baalmarin cid ma dilin cid ma dhicin cid ma xarin fanaaniintii u baxay ayaa waxa la igu dhaxiray meel dil iyo tuug iyo aan fanaaniintii iga horreeyay awal loo xiri jiray kiisaskan oo kale aan lagu xirin ayaa la igu xiray waxaan Ilaahay ka baryay Ilaahay baa cadaalad hayay balse dadka ay shaqada tahay ha noqoto ama ha noqoto xuquuqlistaanka ama cid walba bulshada Somaliland iyo bulshada Soomaaliyeedba iyo fanaaniinta Somaliland waxaan leeyahay aad baan fanku wuxuu ahaa eheliyo walaalo laakiin waxaan hoygii fanka ee Somaliland ee Hargeysa ee afka Soomaaliyeed xarunta u ahayd waxaad maanta dareensiiseen in cid gaar loo dhaqdhaqaaqo fanaaniinta waxaa la barasho wanaagsan kuwa aflagaadada iyo socialka dalaacada ka wada waxaan leeyahay Ilaahay baa idinka weyn Ilaahay baana garab la weydiistaa waxaan ku soo gabagabeynay hadalkayga aan ku dheeraan بعد الصحافة دي عد كستو عد والبولا المسلم وحنا هنين دباتيسن أو المسلم إلهي هدي كرجار بين كرلا يقرب عدي إيه أبو ده شاليدي في منطقة سميت عد والبات سميت إيه الكي عد عد روح كسر قاعد يسمشته وكان بليز أبي وحلا يوها يستقار أي جيران أو الفنيين ديار أنا واحد ودي اللي يقعد هذا أنا أحبس منا نحن نصنبار هاي رمضان نويان إن حريتي اللي يسين جعل please wait for you ولا بليس وان إذن بانيا دمان وحن باقنا بدأنا ندريا دمان
ummadda islaamka meel kasta dunida daafeeda joogan qaasatan reer Hargeysa qaasatan shacabka adinka dawladdu ku dhisan tahay kaca oo wiilka walaalkiina maskiinka u hiliya garabkiisana rasuulkiisa in ku dhaarshay ilaahan in ku dhaarshay yana cuqubayn ka soo bixin war adduunka dhan laba diiq oo isdagaasho la isku daayay adduun dhan loo haligay waan idin baryayaa reer Hargeysa walaalada ilaahan in ku dhaariya kaca ilaahan in ku dhaariya please waan idin baryayaa ninka hala soo daa